wasiir Cabdiqaadir Jaamaci weliba loolanka gudoonka baarlamaanka federaalka tani waa aragti ku saabsan jihaynta siyaasadda Soomaaliya waxaana soo diyaariyay faaladan Yuusuf Saciid Xirsi oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo geeska Afrika faalooda waxna uu ku bilaabay sidan siyaasadda Soomaaliya waxay mar kale gashay marxalad xasaasi ah iyadoo la hadalhayo dadaalo la xiriira doorashada hoggaanka baarlamaanka federaalka wararka siyaasadeed iyo doodaha ka dhaxaloosan madasha siyaasaddu waxay muujinayaan in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud uu taageero u muujinayo wasiir Cabdiqaadir Jaamaci si uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida ay qabto aragtideeda siyaasadeed ayuu yiri Yuusuf Saciid Xirsi dadaaladan waxay qayb ka yihiin qorshe ballaaran oo lagu doonayo in saameynta xukuumaddu ay ku yeelato hay'adaha sharci dejinta waxaana sidoo kale jira dood siyaasadeed oo sheegaysa in kursi baarlamaan loo boobay wasiirka si loogu sahlo inuu u tartamo xilka gudoomiyaha baarlamaanka sida uu yiri Yuusuf aragtideedu waxay tahay in haddii gudoomiyaha baarlamaanka uu noqdo shakhsi buuxda ugu xiran fulinta ay meesha ka bixi karto madaxbanaanidii baarlamaanku waa inuu noqdo hay'ad si madax banaan u ilaalisa dastuurka isla xisaabtanka iyo weliba danaha shacabka halkii uu noqon lahaa meel lagu ansixiyo go'aamada dowladda iyadoo aan dood qoto dheer laga galin Yuusuf Saciid Xirsi waxa uu yiri waxa sidoo kale jira walaac siyaasadeed oo laga muujinayo xiriirka sii xoogaysanaya u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Turkiga gaar ahaan heshiisyada dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo weliba kheyraadka dad badan oo siyaasadda falanqeeya waxay qabaan in heshiisyada noocan ay u baahan yihiin baarlamaan awood leh oo si madax banaan u eegaya kana doodaya isla marhaantaana hubinaya inay waafaqsan yihiin danaha qaranka Soomaaliyeed wasiir Cabdiqaadir waxa lagu xamanaya ayuu yiri Yuusuf Saciid Xirsi inuu xiriir dhow u leeyahay dowladda Turkiga dhanka kale gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu la kulmay dhaliilo uga yimid siyaasiyiin iyo xubno mucaarad oo ku eedeeyay inuu fududeeyo ansixinta sharciyo iyo weliba go'aano ay ku doodayaan inaan si ku filan looga doodin dhaliishaasi ayaa waxay horseeday naanee siyaasadeed oo lagu magacdaray aadan ansax oo ay mucaaradku adeegsadaan haddii taasi sax noqoto waxaa muhiim ah in hoggaanka cusub ee baarlamaanku uu muujiyo dhexdhexaadnimo iyo weliba madax banaani si loo soo celiyo kalsoonida shacabka ayuu yiri Yuusuf aragtideedu khatarta ugu weyn maanta ma aha qofka xilka qabanaya oo kaliya balse waa in baarlamaanka federaalka uu lumiyo kaalintiisa dastuuriga ahayd inuu noqdo hay'ad madax banaan oo ilaalisa danta qaranka Soomaaliyana waxay u baahan tahay ayuu yiri baarlamaan awood u leh inuu si xor ah u qiimeeyo heshiisyada caalamiga ah ula xisaabtamo xukuumadda isla marhaantaana ka shaqeeyo ilaalinta madax banaanida qaranka iyo weliba danaha shacabka Yuusuf Saciid Xirsi waxa uu yiri waxa waajib siyaasadeed saaran yahay xildhibaanada mucaaradka bulshada rayidka iyo weliba dowlad goboleedyada inay si dhow ay ula socdaan hanaanka doorashada hoggaanka baarlamaanka iyo weliba jihada uu socdo iyagoo ku adkaysanaya hufnaan isla xisaabtan iyo weliba ilaalinta madax banaanida hay'adaha dowladda ugu dambeyntii Yuusuf Saciid Xirsi waxa uu yiri mustaqbalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu saameyn toos ah ku yeelan doonaa jihada siyaasadeed ee Soomaaliya sanadaha soo socda sida awgeed doorashada gudoomiyaha baarlamaanku waa arrin ka weyn shakhsi waa go'aan saameyn ku leh dheelitirka awoodaha dowladda ilaalinta dastuurka iyo weliba madax banaanida qaranka Yuusuf Saciid Xirsi oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo geeska Afrika faalooda ayaa soo diyaariyay warbixintan ama qormadan soo diyaariyay